madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Axmed Yuusuf Yaasiin oo saaka xarunta taliska guud ee ciidanka booliska Soomaaliland kula hadlayay saraakiisha ciidanka ee kala duwan sida hogaamada ciidanka taliyaasha qaybaha kuwa saldhigyada iyo madax sare oo ka tirsan ciidanka booliska ayaa waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan karin shirqoolada lagu leynayo saraakiisha ciidamada isagoo saraakiishaasina ugu baaqay in ay marka hore ay naftooda ilaaliyaan marka labaadna amniga guud waajib ka saaran yahay waxaan taasi ku daray madaxweyne ku-xigeenku in xukuumaddu ay qaadayso tallaabooyin xooggan oo ammaanka wax lagaga qabanayo madaxweyne ku-xigeenku oo arrimahan ka hadlaya waxa uu yidhi amniga kasako inagii amniga haddiina la waarsado خدتها بعوي ينكر أقول أمي إلهي مركو هراء ما كده من أمي قرك إلهي دان صاصو قصدي واحد عيا كذا عيا لاسعانات دي الله من مثلا أيو ترياش عيلك بوليس ما هو خلق على كرو هو ما كنا ورثنا منك يا ذكرك من عليك نقول الدين بان فيدنا يا ومضبان قل يا شعبا أو ماتيان قاعد يحكي لي قحنا يا دين وان فيدنا يا ما هو صوت وان دين تكبر شيء دين هو سلام ونبتلي وأمامي وتواصل كان أوضح حصاري وأمامي كل شيء ذكرنا إن شاء الله تعالى والكد دارنا لكن قبل كل شيء أنا أقول حنوشنا هي سكال بالد دلي سكال في أمنية للدلي وعارفنا حنوشنا هي لكن سوي شيء هذه سجل الدلو وسجل حاجة النقطة قام سوي توها كدرا قفكم مربو كمان هي وتصدق قفر رقم هاي لكن عيد الشيء لما هي فما هذا ما هم بدي لغالكره لغالكره ما كل بقى أنجو الحكومة الحين كل 2010 وعلى صاري أود أرى صاري أمريكا taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland Maxamed Saqadi Dubade oo madaxweyne ku-xigeenka warbixin siinayay ayaa isaguna tilmaamay in haddii ciidanku ay helaan imkaaniyaadka ay u baahan yihiin ay dabooli karaan waajibkooda saaran ciidanku hadduu helo kamiyaadkii ku shaqeyn lahaa ee loo baahan yahay waxa garantiya in aan ka xulo anaga xulo dalka diyaar waan u nahay asalku uu sheegay ragani waa horena u shaqeeyay muddana inuu ka imtixaan dambe لو لحي خبيث سنة تلك أي ميوغا لوصل هوني كعنت جوهي النبتلية نقول بهالكي أرودي أولولي سفي عنو خالي أيان أو شيء كودان تينا ويكودين هديالي ومواطنين تاسو بطلية نقدم وحي محاكول على السيلوغارة وحي كيمانيان وحلو باهي أمناشي taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ayaa isaguna halkaasi warbixin ka jeediyay isagoo sheegay in waxyaabaha carqaladaha ku ah ciidanka ay ka mid yihiin dadka fara badan ee ajaanibka ee ku soo qulqulaya magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland